السلام عليكم وسaatantuka ku xiran barteena youtube-ka telegramka waa anigu shafiigay muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay live meetingka aan qabtay asxaabta inta badan ayaa naga soo codsatay inaan recording dib ugu sameyno aan soo gelino barteena youtube-ka maadaama asxaab badan nagu xiran hala zoomku ka buuxsamay sidoo kaleeto asxaabta inta badan waqtiga u heli waayeen liveka cawad wuxuu ku saabsanaa maxaan lahaa istaraatiijiyadda aan isticmaalo maxaa ku tiri karay aniga dad badan ayaa su-aasha ay weydiiyo ah istaraatiijiyadda aan isticmaalo dadka inta badan oo forex-ka maxaa la qof markuu forex baranayane maxaa la wuxuu ugu raadiyo xitaa istaraatiijiyad uu ku trade karay aniga istaraatiijiyadda isticmaalo badanaa waxaa ka aragtiin trade ideyaha aan idinla wadaago aniga waxaa isticmaalaa market structure markaa idin waxyaaba badan ayaa soo hoosgalaayo oo maxaa la qofbo wax ayuu ku trade karayaa qofba wax ayuu ku trade karayaa oo dad ayaa waxay isticmaalaan supply and demand maxaa la lahaa support and resistance dad ayaa ku trade karaya sidoo kale breakout and retest maxaa la dad ayaa maxaa la isticmaalo marka qofbo maxaa la dad ayaa isticmaala chat batteries qofba si ayuu trade karayaa marka aniga maxaa ku trade karayaa aniga waxaa ku trade karayaa trend line ayaa isticmaalaa sidoo kaleeto support and resistance sidoo kale chat batteries candle price action sidoo kale Fibonacci retracement yani badanaa trade ideyaha idinla wadaago waxaad ka aragtiin trend line ama maxaa la sidoo kale waxaad ka aragtiin haddaadan trend line ka arkin support and resistance haddaadan ka arkin chat patterns sidoo kale tradeka markaa qaadanayaan confirmation candle price action ka isticmaala sidoo kaleetana Fibonacci-gana waa isticmaala oo marar dhif ah ayaan isticmaalaa marar qaarna intaan maxaa la confirmation ayaa ka dhigtaabo oo marar qaar trade ideyaha idin soo dirabo intaan waa ka dhex aragtiin marka aniga inta ayaan ku trade karayaa sidoo kaleeto asxaabta inta badan ayaa soo weydiisay sida gold loo trade karay maadaama maxaan lahaa inta badan signalska idin la wadaago oo gold u badan yahay isbuuca adeertaan signalskaa soo diran inta badan gold ayaa ugu badnaa waxaas naga taabtan ma jirinbo oo maxaa la waa ka faa'iidaysanago goldi marka sida goldi loo trade karayo goldi maxaa la muuqaalo badan aa ka diyaariyay youtube waa soo geliyey oo idinku sheegay maxaa la goldi horta lacaga kale uu ka duwan yahay oo beeriska kale lamid ma aha maxaa la xitaa haddii maxaa la lahaa forex aad fahantid oo kaleeta sida qaabka loo trade karayo oo kaleeta istaraatiijiyada aad baratid oo kaleeta goldi waa kugu adkaanaysaa in aad maxaa la aad trade karaysid ama istaraatiijiyada aad isticmaashid ee kugu shaqaysa goldi marka goldi asaga lacagaha kale waa uu ka duwan yahay marka qaabka loo trade karaya goldi ama qaabka looga faa'iidaysto goldi ku trade karay maxaa la lahaa waxaad arkaysid ku trade karay trade what you see goldi marka goldi asaga waxaa ku trade garaynaysaa maxaa la lahaa ku trade garay waxaad arkaysid ha ku trade gareen wax lagu sheegay sidoo kale goldi mar walbo iska update garay maxaa la analyze garay maalin walbo si goldi jahadiisa u socotay midaas waxaa ka wadaa goldi asaga sidaa idin sheegaba lacaga kale uu ka duwan yahay sidoo kaleeto maxaa la lahaa sidaa idin sheegay goldi update garay ayaa jira midaas maxaa ka wadaa had tusaale ahaan lacagaha kale ka soco lacagaha kaleeto hadda markaad analyze garaynayso oo kaleeto maalmaha weekend oo kaleeto suuqu xiran oo maxaa la oo suuqu xiran yahay marka analyze garaynaysid lacagaha kaleeto markaad maxaa la analyze garaysid waxaad dhihi kartaa lacagtan isbuucan waxa uu raacayaa sell oo lacagtan way daadanaysaa downward sidoo kale ama buy way ayaad leedahay kadibna lacagahaas waxaa laga yaabaa isbuuca dhan in ay ku jireen sell ama buy balse laakiinse sida goldi waa uu ka duwan yahay maxaa la goldi sida ka aragtaan buu lacagaha kaleeto uu ka dhaqaaq badan yahay isku dhaqaaq maalinta maalinta oo kaleeta 100 bibo sel uu dhaqaaqa 200 bibo kor soo aadi karaa buy ama 200 bibo sel uu dhaqaaqa 100 bibo ayuu kor soo aadaya maalintii bis asaga maalintii dhaqaaq waa uu sameeyaa laakiinse dhaqaaqa uu sameeya hal jiha ma aha midaas u faham waan fiiri kartaa hal jiha uma dhaqaaqo goldi oo maxaa lahaa sel iyo buy buu u dhaqaaqaa maalinta hadda markaad aad fiirisid suuqoo kaleeta oo furmado fiiri inta uu daatay iyo inta uu kor soo aaday buy iyo selkiisa xisaabi
marka midaan idin leeyahay goldii maamuuba update garee tusaalahaan oo kaleeto hadda maanta isniina markuu isniinta oo kale suuqa markuu furmada haddaad goldi sal uga faa'iidaysatay ama sal aa u analyze garaysato sal kuma noqdaa salkaas uga faa'iidaysatay beriyo talaada waxaa sameyn talaadadoo kaleeto waxaa sameynaysaa waad analyze garaysanaysaa haddana maalintaas cusub analyze cusub ayaa saaranaysaa mar walba goldi aad analyze-kii aad bedeshid oo analyze kale aad saaratid intrina waad helaysaa sidoo kaleeto maxaa lahaa jihadu aadayna goldi waad fahmaysaa marka mar walba iska update garee goldi si aad ula socotid jihadu aadayda sidoo kaleetona midda kaleeto ah goldi ku trade garee waxa aad arkaysid intaas hadaa ku gudbo sidoo kaleeto example badan waa idin tusi doonaa insha allah casharada waa ka samayn doonaaba sidoo kale badanaa waxaan isticmaalaa breakout and retest breakout and retest breakout and retest dad ayaabu maxaa lahaa istaraatiijiyad u taha ku maxaa lahaa ku shaqaysto haddeerta waxaa aragtaa qiimaha resistancega markii marar badan laga celiyay markii dambe waa kana breakout uu ku sameeyo markuu breakout ku sameeyo waxaa sugaysaa inta oo retest uu ku sameynayo aan kadib markaasi buy ayaa u qaadanaysaa to buy high hadduu sell ahaan sell ayaad u qaadanaysaa sidoo kale mararka qaar waxaa jiro fake breakout oo qiimaha uu sameeyo oo markuu hadda jibiyo pullback markuu ku sameeyo isla marka uu kasoo dhex baxo uu soo daato example ahaan midaas haddaa aynu tuso adeerta markaa sheegaray maxaa la trading fiidiyowga example ahaan midaas haddaa aynu tuso haddeertaan lacagta JBB-yada BONCD JBB-NCD haddeertaan isbuuca haddeertaan waan soo diray waa analysekeeda weli noo saaran saad ka aragtidbo waa kana isbuuca haddeerta waa idinla wadaago signalkeeda soo diray ilaa 100 baa ka qaban ilaa iyo waxay daadatay 260 bims ay daadatay haddeertaan marka waa kana hadda lacagta markaad analyze garaynaysid oo kale hadda markaad cabiratid resistancega su'aal ahaan oo kale markaad sidaas u cabiratid mar walbaana marka waxaa cabirtaa wiig iyo bodiga waa la cabirtaa wiiga iyo bodiga waa la cabirtaa oo hadda waxaa arkaysaa qiimahan inta ayuu kasoo daatay inta markuu kasoo daato kale inta ayuu yimaaday intana waxaa ujeedaa inay inta tahay resistance waa laga soo celiyay qiimaha mar kale ayuu inta kasoo laabtay hadda waa kana loop wuxuu sameeyey fake breakout ayuu sameeyey ujeedaa oo uu soo jibiyey balse laakiinse waxaa ku dhaha pullback sugaa ku dhaha pullback ta waa kana isla markii wuxuu sameeyey feeri isla markii uu soo jibiyey haddana fake breakout ayay noqotay kadibna waa kana wuxuu ku sameeyey pullback haddana wuxuu ku sameeyey markuu soo jibiyey waxaa sugaysaa inuu haddana pullback ugu sameeyo resistancegan waa kana pullback ayuu si fiican ugu sameeyey and then waa ka candle transaction candle uu maxaa la confirmation buy ayuu sameeyey oo engulfing ah kadibna buy ay u qaadanaysaa xagga ay dhiganaysaa stop losska signalka xitaa inaa soo diraa jeclahay waa idinla wadaagabo xagga markuu tagay xitaa waa soo diray trade ID-yeeda xitaa waa idinla wadaagabo oo sell ayaa kasoo qaadanay internet sababtaas lagu soo qaato waxay ahayd inta ayaa resistance ahayd qiimaha meeshii ayuu kusoo laabtay meeshii markuu kusoo laabtay qiimaha kor ma sii aadi karo waxaa wax badan ayuu hadda kor soo aadi kor siima aadi karo oo ma jibi karo meeshiina waa meel resistance waxaa qasab ah in la soo celiyo oo waa kana waa la soo celiyo marka sidoo kale markaad saaranaysid horizontalka support and resistance oo kaleeta mar walba inuu ku saxan waxaa ku ogaanaysaa in qiimaha loo meel laga celiyo markii loo meel laga celiyey oo uu ku saxsanaanaya computerka diblaaniga jajarka gelina waxyar iyo dulqaata saab marka maxaan lahaa waa kana uu soo daata haddana hadda waa kana markuu kor soo aaday nuug wuxuu u sameeyey qiimahani markaa adeerta waa kana muxuu ku socday bay xoogan ayuu ku socday oo markuu inta imaaday oo uu jibiyey marka uu jibiyey maxaa la waa kana isla markaa haddana waa kana fiiro uu soo dhex baxay oo uu soo jibiyey oo muxuu sameeyey fake breakout ayuu sameeyey marka confirmation mar walba la sugtaa markuu pullback uu sameeyey candles buy fiican ayaa la sugtaa hadda waa kana rejection ayuu sameeyey isla markiina uu soo jibiyey
markaan ayuu muxuu ku sameeyey retest ayuu ku sameeyey isla markiina confirmation uu sameeyey uu sal laba kandhal oo sal ayuu sameeyey kadibna anagana xagga sal idinka soo dirabo ilaa inta ayaa ka faa'iideysan oo 100 dib waana ay daadataba marka waayaba ay sii daadanaysaa oo still sell waa bonus ilaa inta uu sii gaaraysaa waan waa soo soo insha Allah marka hadda markaa ku laabano PowerPoint-geeni oo meeshaas uga gudbo breakout retest sidoo kaleeto ani waxaa isticmaalaa trendlineska badanaa saa ka aragtay tradeyaha trendlineska waa muhiim in aad fahantid qaabka trendlineka loo saaro mar walba waxaan laasgareynaysid haddii trendlinekaaga si mar walba trendlineka si qaldan aa u saartid waa mar walba in tiri qaldan aad ka geshid maxaa la tradeka marka mar walba iska sax trendlinekaaga hadda trendlineka si saxa u saaratid waxaa lahaa qiimaha ay lacagtaas kuma khasaaraysid hadda midkan kor waxaa aragtaa in channel uptrend uu yahay oo qiimahani buy ayuu aaday haddana buy 3 mar ayaa laga celiyay trendlineka mar afraadkii oo uu jebiyey marka dad badan ayaa su-aal waxay soo weydiiyaan ama maxaa la isweydiiyaan sidee ku fahmayaan markii trendlinkeyga breakout lagu sameynayo sidee ku fahmayaan trendlinkaaga waxaa ku fahmaysaa trendlinkaaga horta in 3 mar laga celiyo trendlinkaaga mar afraadka haddii trendlinkaaga la imaado qiimaha waa uu jibinayaa mar afraadkii marar qaarka way dhacdaa oo qiimaha laga celiyo balse laakiin markaas laga celiyo wuxuu sameeyaa isla waxyar markii trendlineka laga celiyo correction ayuu galaa oo flag camal ayuu samaysaa continuation waa uu daataa balse laakiinse badanaa haddii qiimaha trendlineka 3 mar laga celiyo channel uptrendkan oo kaleeto 3 mar markii buy laga celiyey mar afraadka uu yimaado uu soo jibiyey oo qiimahaas markuu soo jibiyey aad sugtid bullback sugo oo bullback uu ku sameeyo clear sell waa sell u qaado waxaa lahaa in uu laalaabto maybe balse laakiinse uu daadanaya lacagtaasi drop ayay sameynaysaa marka trendlinkaaga in marka waxa uu jibi karaa oo qiimaha la jibi karaa markii 3 mar laga celiyo sidoo kale trendlinkaaga inuu kuu saxayaan waxaa ku ogaanaysaa markii 2 meel laga celiyo trendlinkeyga waa kana labada meel laga celiyo meel isla siiyey 2 meel oo isla siman in laga celiyo marka waa kana mar saddexaadkii uu breakout kareeyey breakout ku sameeyey markuu breakout ku sameeyey retest sugo kadib candle confirmation sugo sell kadib sell u qaado sidoo kale tan hadda waa kana asoo down trend and then isna waa isla same kii horeeto waa markaa ka gudbo ayadoo baratic ahna waa tanaabo oo adartan trade aadiyahani waxaa kasoo koobigareeyey maxaa lahaa Instagramka oo hadda bonzi waa tanaa before 300 bib ay daadatay waa kana hadda trendlineka hoose markaa saaro sidoo kale trendlineka kor fiiri markaa saaro trendlineka kor waxaa arkaysaa kow in 1 meel laga celiyey sidoo kale 2 meel laga celiyey oo qiimaheygii markaa saas u saaro uu ii saxan yahay 2 meel ayaa laga celiyey trendlineka mar saddexaadkina waa marka uu qiimaha joogo waa meesha mar saddexaadkii waa kana waa soo diro waxaa dhaa meeshaas correction ku kale and then drop waagu after waa kana bonusgii markaa fiirisid waa kana way soo daata meesha ku laalaata weli waxay sii samaysay hadda uu muuqdo markaad fiirisid double top ayaa ku muuqdo oo reversal ayay samaysay way soo daadatay ilaa 300 marka waa kana oo hadda trendlinkii waa kana mar saddexaadkii ayay kor joogtay waa uu kasoo daadatay sidaa darteed trendlineka uu kugu tusay sell hadda waa kana markii saddexaad waa ka kor uu kasoo daatay oo qiimaha qasab maahan in uu jibiyo sidoo kaleeto ayadoo adartan tan waxaa waaye ayadoo uptrend oo channel uptrend waa sidoo kale ayadoo down trend waa kana lacagta iyo statiya adartan waxaa arkaysaa markaa si fiican u fiirisid in 3 mar laga celiyo ayadan markaa si fiican u fiirisid trendlineka mar afraadkan waa kana markii timaaday waa ay jibisay bullback ayay ku samaysay weliba dhax ayaa ka qaadanaba oo buy waxaa lahaa ilaa waxay gaartay targetka sidoo kaleeto markaa intaas ka gudbo haddeertan ayadoo baratic ahaan oo kaleeta
ayadoo baraatika markaa idinku tusoo kale suuqoo kale hadda markaa geeyo maxaa la dhahaa hadda lacag ugu dambeeyaa soo dirnay sida hadda AUDJPY oo kaleeto AUDJPY hadda waa kanaa look lacagtan aan soo diray trade ID-geeda sidoo kaleetana signalkeeda xitaa waa idinla wadaagabo waa kana trade ID-geeda waxaad ka arkaysaa AUDJPY waa kana trendline-kii kore waa kana ku yar waa ay kasoo daadatay and then waa kana mar kale ay ku laabatay waa kana marka hore markay kasoo daadatay mar kale ayay ku laabatay way kasoo daadatay mar saddexaad ayay ku laabatay waa laga soo celiyey sidoo kale waa kana mar afraadka waa kana markaana waa kana waa ay tagtay waa laga soo celiyey laakiinse markii dambe waa kana breakout ay ku samaysay kor ay ka adow laakiinse lacagtan ani waxaa ka galay inta ayaa ka qaatay sababa inta uu qaatay sababta uu qaatay wax kale ma aha qiimaha markuu xag ku dhacay la soo celiyey maxaa la lahaa waxaa markaasi inta markaa hadda fiirisay dhanka leftiga waxaa arkaysaa in meeshaan ay tahay resistance adag oo maxaa la lahaa marar badan qiimaha laga celiyo kor uu ka aad marka markaa meeshaas cabirtay waa kana qiimihii uu soo daatay meeshaan ku sugaayo markuu yimaado waa kana candle confirmation oo uu sameeyo oo buy ah sidoo kaleetan one confirmation candleska waxaa ka qaadan kartaa 1 hour-ka ama 4 hours oo kaleeta laakiin taamayda yaryar oo kaleeta confirmation lagama qaado si 15 minute oo kale waa uu ku qaldi karaa marka laakiinse 1 hour oo kaleeta 2 candle oo kale ama 1 candle oo kaleeta oo kee waaye iyo sidoo kale 4 hour-ka confirmation waa ka qaadan kartaa haddana hadda waa kana markuu berigood gareeyo oo kaleeta xitaa buy uu sii qaadan karay hadda waxay samaynaysaa lacagtaani meeshaan ayay ku laalaabanaysaa marka hadda fiirisid meeshaasi ay ku laalaabanaysaa oo inay kasii kacdo ilaa targetkaas ay gaaraysaa sidoo kale markaasi fiirina lacagaha kale hadda waxaa sharxayo kaleeto idin tuso waxaa kamid lacagta NZD-JPY oo kaleeta lacagta idinla wadaagin confirmation ay suganayabo maxaa la lahaa wiigan insha allah ay soo daadanaysaa adeertan waa kana markaad fiirisid NZD-JPY waxaad arkaysaa trendline-kaaga waa kana marka aad saaranaysid waa in 2 meel laga celiyaa hakuna 1 2 waa kana markaan saddexaad muxuu joogaa trendline-kayga ayuu joogaa oo qiimihii in laga celinayo ayaa ogaa marka waxaa samaynayaa confirmation inta uu ka samaynayo sinay marka confirmation-kana maxaa la taamada yaryar ayaa laga fiilaya sida 4 hour-ka 1 hour-ka oo kale laakiin daily oo kaleeta oo suga intaa dhehaysid qiimihii waa uu daato waa uu ku dhaafo already marka markaa sidaas waa trendline-kii uu saaro sidoo kale waa kana waxaa saaranaysa horizontalka markaa saarto meel resistance ay joogtaa hadda waa kana oo 4 hour-ka rejection ayaa lasoo siiyeybo already hadeertaan candle buuxo buy engulfing ku xirmatabo hadda candle kale oo sell ayaa socda marka waa ay daadanaysaabo ilaa intuu gaaraysaa marka hadeertaan waa kana trailing-kayga si saxan ayaa u saartabo and then hadda qiime waa kana confirmation uu sameeyaa hadda candle-kaasi kale waa ka qaadan karaabo oo hadda meel resistance ay joogtaa stop loss-kaagana waxaa dhigaysaabo resistance korkiisa ayaa dhiganaysaabo oo 30 bib 40 bib baa ka dhiganaysaa ilaa 10 bib 35 bib badanaa maxaa la lahaa stop loss-ka signalada soo dir badanaa sida hataa goldi lacagaha kaleeto dhan 50 bib ma dhaafaanbo oo goldi adeerta isbuucan idinla wadaagaya marar badan ayaa signalkii soo diray 40 bib 50 bib ayuu ahaabo 45 bib ilaa 50 bib uu bixiyey marka midaasna waxaa sabab waaye trade-ka markaa ka qaadatid good entry oo kaleeta stop loss-kaaga meel dhow ayaa dhigan kartaa stop loss-kaaga meel dhow ayaa dhigan kartaa oo hadeertaan waa kana AUD-JPY waa kale stop loss-kayga kaleeta meeshaas stop loss-kayga kale meeshaas ayaa dhiganayaabo meeshaas ayaa dhiganaysaa laakiin qiimaha inta maraa kale hadda markay soo daadato kaleeta oo inta qiimaha markuu yimaado haddaa dhaa sell u qaadanaya stop loss-kaaga kaleeto waa uu kaa dheeraanaya ilaa xagga inaad dhigteed noqonaysa 100 bib kaa noqon kara marka usoo laabto powerpoint-ga mashirka markaa usoo laabto
marka meesha soo gudbo maxaa la lahaa trend line-ka sidoo kale meesha nuud ayaa ku qoran oo ah trend line-ka iyo horizontalka mar walba waxaa adag horizontalka ayaa adag horizontalka ayaa ka adag si kale marka kuu sheego horizontalka ayaa ka adag trend line-ka inta waxaa kuu qoran trend line-ka iyo horizontalka mar walba waxaa adag horizontalka adag midaas trend adarta waxaa aragtaa badanaa in qiimaha kaleeta ama lacagaha marka aan la isgareynayso kaleeta trend line-ka in break out la iskaga sameeyo oo qiimaha uu jibiyo ama feeg ha noqoto ama markuu jibiyo oo ka daato kaleeta balse laakiinse horizontalka oo kale waa adagtaa in uu jibiyo qiimaha marka trend line-ka iyo horizontalka waxaa adag horizontalka adag midaas example ahaan haddii idinku tuso hadeertan markii hadda lacagtan oo kale NZD check waa kaleeta hadda waa kana example ahaan hadda lacag waa kana hadda NZD check waa kaleeta hadda waa kana trend line oo kaleeta markii aad sidaas u saarto oo kaleeta breakout ayuu ku sameysado hadda laakiin tan breakout fiican ma ahan laakiinse waxaa ujeedaa adeerta in ay jibisada ay kor ka aaday marka aad 4 hour ka imaan balse laakiinse waxaa laga soo celiyey maxaa la lahaa resistancega ayaa laga soo celiyey horizontalkii marka horizontalka marka wax kale kama wado waa support and resistancega waa xariiqtintaas u isticmaashi jiifjiifka marka hadda waxaa aragtaa in horizontalkii laga soo celiyey qiimihii rejection ay soo qaadatay marka lacagaha kaleetana waa fiiri kartaa badanaa qiimaha wuu jibiyaa trend line-ka ma ixtiraamo trend line-ka oo kaleeta wuu iska breakout gareynayaa balse laakiinse horizontalka waa uu adeeg yahay marka trend line-ka iyo horizontalka ay adag hadda waa kana qiimihi uu kasoo daatabo sidoo kaleeta lacagaha kale marka backtestingku aa ku sameyso kaleeta fiiri waad arkaysaa oo maxaa lahaa trend line-kaagii marar badan in la jijibiyo oo qiimihii oo trend line-kaagii uu jibiyo marka backtesting ku samee sidoo kale hadda marka usoo laabano marka meesha soo gudbo sidoo kaleeto maxaa lahaa cover info sidaa la socotaanbo maxaa lahaa applicationka soo wadno maxaa lahaa applicationka deerta oo soo saarnabo play store ka helaysaa available waabo sababta inta badan way la socotaabo maxaa lahaa applicationka adeerta play store ka helaysaa laakiinse app store ka cilad ayaa ka jirto oo insha Allah isbuucan inaan xalinaan isku dayi doonaa waa ciladaas app store ka jirto balse laakiinse available waa play store ka waad ka helaysaa sidoo kaleeto qaabka iskaga diiwaangelin lahayd waxyaas dhan video ayaa kasoo diyaari doonaa oo waa idinla wadaagi doonaa marka dad badan ayaa isweydiinaya applicationka qorme ayaa lasoo bandhigi doonaa insha Allah bishan dhexdeeda waa rajeyn doonaabo in aan soo bandhigno oo haddeeta cilad yar ayaa jirto notificationka markii signalka loo diro kaleeta notificationka in qofkii cod oo kaleeta u dhaco fariinta oo kaleeta u dhacdo ayadan isbuucaana ku xalinayna insha Allah marka insha Allah bishan waa soo bandhigaynaa applicationka marka applicationka haddeeta play store ka helaysaa laakiinse app store ka cilad yar ayaa ka jirta ayadana waa xalin doonaabo marka hanti kobaca maxaa ka mid ah waxyaabaha uu qofka ka heli doono applicationka hadduu iska diiwaan geliyo applicationka adeegyada ku qaban doono waxaa ka mid ah jadwalka applicationka adeegyada ku bixi doono waa 4 oo ah live signals weekly analyze soo kale live goal trade idea marka soo laabano live signalska waxaa ka aragtaysaa hoos faahfaahinta oo waxaad heli doontaa dhammaan beeriska dhammaan lacagaha waa soo diri doonaa sidoo kale goldin waa soo diri doonaa maalintiin waxaad heli maxaa la soo diri doonaa 2 ilaa 4 signals oo waxa u yar 2 signal sidoo kaleeto weekly analysis ayaa jiro weekly analysiska asagana waxa waaye live meeting ayaa jiri doono oo aniga soo geli doono axad walbo waxaan ku falaqeyn doonaa fursadaha markaasi isbuuca maxaa la lacagaha markaasi baan sida ka banaayiin oo kaleeta maxaa lahaa zoom inuu ku sharxi doonaa si isbuucaas aad uga faa'iidaysataan sidoo kale signalskiisana waa idin soo diri doonaabo sidoo kale su-aalahan iyo jawaabona waa jiri doonaa
inta saddex gudbo sidoo kale live goal ayaa jiro oo goal asna waa idinla wadaagi doonaabo maalintii oo kaleeta hadda meesha reer ayaa ku jiro maalinta isaga hal signal ilaa iyo 3 signal ayuu dhexi doonaa oo goal idinla wadaagi doonaabo hal signal ilaa iyo 3 signal sidoo kaleeto goal trade ID-giisa idinla wadaagi doonaa sidoo kale waxaa jiri doono live meeting oo goal bis ah backtesting oo kaleeta ayaa ku sameyn doona oo habeenka axadda ayaa live-kaasi soo geli habeenka talaadada soo gelayso aan soo geli doonaabo marka waxaan ku sharxi doonaa gold bis gold waxyaabaha uu sameeyay isbuucaasi oo backtesting aan ku sameyn doono sidoo kaleeto maalmaha dhiman gold qaabka uga faa'iideysan doono iyo sidoo kaleeto gold qaabka loo trade gareeyo waxyaabahaas oo dhan iyo gold kaliya qaabka maxaa la uga faa'iideysan lahayd trade ID oo kaleeto gold soo dir qaabka uga faa'iideysan waxyaabahaas oo dhan waxay kula wadaagi doonaa insha Allah maxaa la live-kaasi sidoo kaleeto goldi dadka inta badan waxay weydiiyaan goldi istaraatiijiyadda iyo waxyaabahaasi marka live-kaas ayaa ku sharxi doonaa waa cashar habeen walba qayb ayaa idinla wadaagi doonaa si aad goldi wax badan ugu fahantaan intaas hadaa gudbo trade ID ayaa jiri doonabo trade ID-hana maalinta waxaan idinla wadaagi doonaa afar ilaa iyo maxaan lahaa 3 ilaa iyo 5 trade ID oo kaleeta sidoo kaleeto waxaa jiri doono waxaa dhiirigelin ah idinla wadaagi doono marka applicationka waa intaan oo waxaa ugu weyn live signalska web analysiska live body iyo trade ID weekina laba mar ayaa live soo gali doonaa oo habeenka axadda waa idinkula wadaagi doona isbuucaas jaanisada furan lacagaha iyo sidoo kaleeto habeenka oo talaadada soo galayso oo goldi aan maxaan lahaa idinkula wadaagayo goldi idinku faa'iideynayo marka intaas ayuu ku saabsanaa live-keena aadaan umahadsantihiin hadda su-aal qabtid oo kaleeta waxaan lahaa waxaan ugu soo diri doontaa emailkeena hantifa.com sidoo kaleeta ama lambarkaasi whatsapp-ka aad nakala soo xiriiri kartaabo oo whatsapp-ka uu shaqeynayaabo live-keena intaan ku egyahay waana mahadsantihiin fadlan haddii channelka maxaan lahaa markii kuugu horeysay tahay oo nasoo booqata subscribe saar sidoo kaleeto cashirka like saar sidoo kaleeto qaybta commentiga kula wadaag fikradaada waxaa noo taa dhiirigelin mahadsanidin